السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برامج كيني تحناها آها يعني وهاد ليني انترفيوغا أما لما كاها يستا شقادا سيدو كلان أبحني لما كاها يستا انترفيوغا برامج كيني سيدان سو أرغنايبا قد بس ديد ayaan soo sheegnay inaan dul istaagi doono oo ah kuwa ugu badan ee soo noqnoqda xilliga interviewga. qodobadan qodobka ugu horeeyay wuxuu ahaa in lagu weydiiyo inaad ka hadasho naftaada. Tell me about yourself. sida caadiga marka su'aashan lagu weydiinayo waxa ka horeeya sida caadiga ah in markii lagu yeero aad is salaantaan adiga iyo wareystaha aad isu gacan qaadaan macnaha gacanta iska salaantaan oo gacanta isu ruxdaan isla ruxdaan inaad nafsadaada barto waxa ku xiga taas oo sida caadiga ah qofka wareystaha ah ودونايو inuu ku ogaado nafsadaada ayaa waxay tahay inaad ka hadasho nafsadaada. wuxuu ku dhihi talk about yourself. sida caadiga waxay kula muuqanaysaa midaan mid fudud markii lagu raado iska hadal nafsadaada ka hadal. sababtu maxay tahay marar badan markaad Ingiriiska soo dhiganaysay class-kaada Ingiriiska ku soo dhiganaysay private-ka college-ka jaamacada way iska sahlaneed inaad practice inaad samayso oo lagu raado talk about yourself kadibna aad si fudud u tiraado wixii aad rabto oo xilligaas aad soo samaysay in lagu raado talk about yourself inaysan kula muuqan si adag. laakiin waxaad ogaataa qofka wareystaha ah ay ku wareysanayo arrimaha shaqana ka wareysanaya ma doonayo ama ma rabaan oo ma doonayaan inay ka maqlaan adigu wax kasta oo faahfaahin ah oo adiga kugu saabsan. iska ilaali inaad tiraahdo waxyaabo badan sida inaad tiraahdo aniga waxaan ku dhashay Mehilayo, aniga Muqdisho aan ku dhashay iyo meeshaad ku dhalto markaas magaalo ah inaad magacaada sheegto tiraado Mehilayo ku dhashay aniga waxaan jeclahay ciyaaraha sida orodkaan jeclahay feerkaan jeclahay sportigaan jeclahay adigu wuxuu ciyaaraha jecesha sheeganaysid ama inaad ka hadasho walaalaha aniga waxa ila dhashay intaas soo wiil waxa ila dhashay intaas soo gabdhood ogow mar rabaan inay ogaadaan wax kasta oo faahfaahin adiga kugu saabsan ma aha waxayna ku weydiin. They want to know about you and your paragraph. waxay rabaan inay ogaadaan wax adiga kugu saabsan iyo horumarka adiga aad sameysay ee shaqo oo waliba la xiriira shaqada hadda aad codsanayso. waxay rabaan inay ogaadaan oo adiga ay ka ogaadaan xiriirku uu leeyahay horumarka adiga aad sameynayso shaqada aad codsanayso xiriirku uu leeyahay waxay doonayaan ogaadaan. iskana ilaali markaad interview ku jirto inaad isticmaasho ereyada halku-dhigyada ah. ereyada halku-dhigyada ah inaad isticmaasho iska ilaali. ama xitaa waxyaabaha yariska sida grammarka oo kale oo waliba grammar basic inaad qalado adigoo interview ku jiro iska ilaali. qaybta labaad waxaan uga hadli doonaa su'aasha labaad oo inta badan la isweydiiyo ah what are your strengths ama waa maxay awoodaha aad leedahay ee la xiriira shaqada ka ayaan uga hadli doonaa qaybta labaad insha Allah taala qaybteenan halkaas aan ku soo gabaynaynaa.